الله الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. وزيرك وزارة تمرتي معدنته madaxda komishanka tamarta qaranka ee halkan fadhida gaasmaha guud iyo gudoomiyaha gobolka Muqdisho bahda saxaafadda iyo shaqaalaha komishanka. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. maanta waa bishu tahay 7 bishii June maalin Salaaso ah. sida ka muuqata halkan waxa ku dhan dadkaadii tiriyay saaka subaxii horena waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo dhammaan shirkadihii adeega bixinayay wasaaraddii iyo komishankuba shir ay ku kulmeen oo duruufaha yaala ee maanta ay shacabku xadanteynay laabtooda oo ayaamahanba muddo dheer isku socdeen xafiiska lagu kulmay go'aamada waan sheegi doonaa. shirkadaha laydhka wasaaradda oo hogaamiyay wasiirku iyo komishankaba muddo waxa uu socday wada hadallo arrimahan lagu falanqeynayo. sidaa uu sheegay commissioner liibaan shaqada waa la kala leeyahay. waxqabadkii xukuumaddu ay lahayd iyo horumarka saga u talagashay uu tilmaamay shaqada ay leeyihiin dadka adeega bixiya oo runtii adeeg aad qiimo badan inoo haya uu sheegay adeega qaybta labaad ee aanu ilaalinaana maadaama sectorka hore loo barinayay waa macaamiisha mujtamaca weeyaan, taasoo ay u baahan tahay in dareenkooda iyo hadda wixii kaca xukuumaddu waxay u maalgelinaysaa waxa mashaariic la sheegay in ay helaan tamar ay awoodi karaan baa ugu muhiimsan. amnigii iyo deegaankii waa qaybahaas maanta inoo dambeeya, laakiin maanta dareenka shacabka taasi filanayeen. waxaad la socotaan waxaa naga soo baxay warqad ayoo aynu hakinay bishii May maadaama wada hadallo socdeen shirkadaha iyo komishanka tamarta ay ahaydna si wada jira in loo go'aamiyo. alxamdulillahi rabbil caalamiin saaka waa uga mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha gudaha. shirkaasi waxaa la soo gartay in aynu marka koowaad si ay kacdoonka dadka u ilaaliyaan maadaama aanay ogeyn aakhirkii bishii ugu dambeeyeen shacabka lagu dalacay oo la kordhiyey. horta bishii May in halkeedii lagu hayo oo bilasha khadka u baxay la sixi doono. wixii ka dambeeyay waxaa loo ballamay shir degdega oo lagu lafagurayo arrimahani duruufaha marka ay kordhaan xal isbedelaan wax wada jir bay kala gooyaan. qaran baynu wada nahay, cidna cid kama maaranto. annagu shuruucda iyo hogaamintan u leenahay ayna adeega inoo bixiyaan. adeegaas si loo hormarinayo waajib la saaran sabtida ayaa loo ballamay. haddii ilaahay yidhaahdo waxay u baahan tahay in la isla eego duruufaha kacay halkay iska taagi karaa si markaa in naxariis leh mujtamaca ay u adeegayaan aynu u ilaalino. haddii ilaahay yidhaahdo inta ugu muhiimsan waxa weeyaan oo shirka saaka ka soo baxay kow in bishii May ee ay dadku ka qayliyeen ay uga mahadnaqaynaa shirkadaha iyo guud ahaanba tiimkii wada jirayba. waxaa la isla gartay in bishii May